السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad og tahay waxtarka iyo faa'iidooyinka caafimaad ee ay leeyihiin midhaha shanfaxdu sidoo kalena haddaad og tahay faa'iidooyinka iyo waxtarka caafimaad ee ay leedahay timirtu aan kuu sheego arrin kaloo muhiima oo kaaga qarsoon labadan shay waana inaad 7 xabo oo timira ku darto hal qaado oo ah midhaha shanfaxda oo la shiiday kadibna aad cunto xilliga subaxda hore marka labadan shay qaabkan la isugu darana waxa lagu sheegay kuwa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo aan tiro lagu soo koobi karin waxaanaynu soo qaadan doonaa 10 faa'iido kamid ah faa'iidooyinka ay leeyihiin marka shanfaxda iyo timirta la isku daro waqtigana la isticmaalo waxaanay kala yihiin sida soo socota kow waxa lagu sheegay marka labadan shay la isku daro inay yihiin shayga ugu wanaagsan ee jidhka ka ilaaliya dhiig la'aanta waxaanay yeeshaan oo jidhka siiyaan xaddi badan oo amaadada xadiidka laba marka labadan shay qaabkan la isugu daro waxay jidhka siiyaan xaddi badan oo ah calcium iyo potassium iyo maadooyin kale oo muhiim u ah caafimaad qabka iyo hagaajinta guud ahaan lafaha jidhka oo dhan saddex waxa lagu sheegay labadan shay marka qaabkan la isugu daro inay noqdaan shayga ugu wanaagsan ee dawada ka ah noocyada kala duwan ee infekshanka waxaanay meesha ka saaraan xanuunada laga dareemi kara kala goysyada iyo xubnaha jidhka oo dhan afar waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee caloosha ka ilaaliya cilladaha uu shubanku ka mid yahay shan daraasado badan ayaa lagu sheegay in marka labadan shay qaabkan la isugu daro ay jidhka u diidaan nooc kastoo bakteeriya iyo jeermisa oo dhibaatayn kara jidhka lix sidoo kalena daraasado badan ayaa lagu sheegay inay labadan shay ilaaliyaan caafimaad qabka beerka dawana ka yihiin xanuunka bawasiirta toddoba waxay jidhka ka saaraan sunta waxaanay u wanaagsan yihiin aragtida iyo caafimaad qabka indhaha ka hortagna waxay u yihiin qaar ka mid a xanuunada ku dhaca wadnaha sideed waxay ka hortag ka yihiin dhammaan xanuunada ku dhaca laabta iyo dadka naqaska uu qabto waxaanay jidhka ka difaacaan kansarka ku dhaca caloosha sagaal waxay ilaa xad yareeyaan halista uu keeno xanuunka dhiigkarku waxaanay awood badan siiyaan jidhka korna waxay u qaadaan habdhiska difaaca ee jidhka toban waxay soo celiyaan miisaanka jidhka haddii uu hoos u dhaco dhinaca kalena dadka qaba xanuunka tayroodhka ayaa lagula teliyey inaanay xaddi badan ka isticmaalin midhaha shanfaxda sidoo kalena gabadha uur kale ayaa lagula teliyey inaanay gebi ahaanba isticmaalin midhaha shanfaxda isla dhinaca kalena aan ku xasuusiya inaad koob caanaa ku darto hal qaado barhkeed oo ah midhaha shanfaxda oo la daqiijiyey isla markaana aad ku sii darto hal qaado oo malab saafi ah kadibna aad cabto wakhtiga subaxdii muddo 15 maalmood oo xidhiidh ah isla markaana aan ku sheego 11 faa'iido oo ay jidhka u leeyihiin midhahani marka qaabkan loo isticmaalo iyo sidoo kalena dadaan loo ogolayn isticmaalka midhahan aynu ku horreyna 11 faa'iide midhahani ay leeyihiin ayaa waxay kala yihiin kow waxa lagu sheegay kuwa mucjiso u ah caafimaad qabka iyo lafaha laba waxay hoos u dhigaan dhammaan xanuunada ku dhaca lafaha iyo xanuunka rheumatismka saddex waxay meesha ka saaraan xanuunada dadka waaweyni ay ka dareemi karaan kala goysyada jidhka afar midhahan ayaa ah midho guud ahaan u wanaagsan caafimaad qabka dumarka gaar ahaana hooyooyinka carruurta nuujinaya shan waxay u wanaagsan yihiin caafimaad qabka dadka qaba xanuunka sonkorowga waxaanay xakameeyaan halista uu xanuunkaasi ku keeni karo qofka lix waxay wanaajiyaan caafimaad qabka iyo isu socodka dhiigga ee jidhka oo dhan toddoba waxay meesha ka saaraan cunto qaadasho la'aanta waxaanay degdeg u soo celiyaan miisaanka qofka haddii uu hoos u dhaco sideed waxay hoos u dhigaan calool xanuunka iyo xanuunada ku dhaca laabta sagaal waxay jidhka ka sifeeyaan qabowga waxaanay jidhka ka saaraan hargebka toban waxay beerka ka ilaaliyaan maadooyinka sunta ah ee dhaawici kara caafimaad qabka beerka 11 waxay wanaajiyaan caafimaad qabka indhaha waxaanay kor u qaadaan xasuusta qofka dhinaca kalena waxa aad looga digay in xaddi badan laga isticmaalo midhahan dhinaca kalena dadka qaba xanuunka tayroodhka ayaa lagula taliyey inaanay gebi ahaanba isticmaalin midhahan sidaasoo kalena ruuxa dumar ah ee uur kale ee weliba ku jirta bilihii hore ee uurkeeda ayaa lagula taliyey inaanay iyaduna isticmaalin midhahan